run ahaantii qaybtan waa qaybtii labaad oo aan ka hadli rabo Soomaalidu waxaase u keeni karayo cudurkani cagahurka ah iyo daaweyntiisu maadaama qaybta koowaad oo aan ka soo hadlay ummadaha kale waxaase u keeni karayo cudurkani cagahurka ah iyo daaweyntiisu haddaba maxaase u keeni karayo Soomaalidu cudurkani cagahurka ah haddii aan Soomaalidu u soo laabto waxa ugu badan oo u keeno xanuunkan waa 4 waxyaabood oo kaliya midda koowaad waxa weeyaan fitamiin yarida qaas ahaan fitamiin B-ga noocyadiisa kala duwan ee kala ah fitamiin B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 iyo B12 waxayna kulligood ka qayb qaataan ilaalinta iyo kobcidda neerfaha waxaana badanaa laga dareemaa dhibaatadooda cagaha run ahaantii Soomaalidu laguma tiriyo ummadaha cunnada dheelitiran cunnadeenu waxay u badan tahay carbohydrateska sida bariiska baastada iyo canjeerada iyo borotiinada sida hilibka ukunta iyo kalluunka dabcan waa ay noogu yar tahay waxyaabaha laga helo cunnada fitamiinada iyo macdanta kale oo jirka muhiimka u ah sida khudaarta iyo fruitiska fitamiinada kor ku xusan oo isku samaysan oo loo yaqaano vitamin B complex ayaa jiro oo aad qaadan karayso iyadoo kaniini ah qaabka aad u qaadan karaysana waa in aad kala tashataa dhakhtarkaagu midda labaadna waxa weeyaan cudurka loo yaqaano gaaska ee ugu badan ee cagahurka u keeno Soomaalidu inkastoo uusan cagahurku kaliya aanan gaasku lagu aqoonin waxa ay la soconi karayso hur calaacasha ama sacbada iyo calaamado kale oo lagu yaqaano cudurkani gaaska ah run ahaantii haddii aad rabto faahfaahin dheeraad oo ku saabsan cudurkani cagahurka ah waa ayaad ka heli doontaa channel YouTube-keegu maadaama Soomaalidu badankood ay ugu cawadaan cudurkani gaaska ah midda saddexaadna waxa weeyaan xanuunka loo yaqaano hypothyroidism oo ku badan haweenkeena waxaan kula talin lahaa qof waliba oo haween ah da'deedana ka sareysa 30 sano in ay iska baarto xanuunkan haddii aad u baahan tahay xanuunkan waxa uu yahay iyo astaamihiisa waa ayaad ka heli doontaa sidoo kalena channel YouTube-keegu midda afraadna waxa weeyaan cayilka qofka cayilan waxa ayuu si sahlan u dhaawici karayaa seedaha cagihiisa taasoo keenayso in dhaawac uu gaaro neerfaha lugaha qaas ahaan hadduu qofka uu ku labisto kabo taaka leh ama ku dhegan fadlan haddii aad cayilan tahay iska ilaali in aad xiratid kabo ku dhegan ama qaloocan oo taako leh ama hore u dhuuban oo faraha ciriiri kaaga geliya maadaama cudurkani cagahurka ah oo ay ka cawadaan ummadaha kale iyo Soomaalidu waxa ayaan jeclaystay in aan sidoo kale idin soo gudbiyo talooyin guud oo ku saabsan cudurkani cagahurka ah dabcan haddii aad raacdo talooyinkani hoose waa ayaad ka faa'iidi doontaa insha Allah talada koowaad waxa weeyaan waa in aad cuntaa cuno isku dheelitiran oo leh fitamiinada kor aan ku soo xusay midda labaadna waxa weeyaan waa in aad yaraydaa miisaankaagu haddii aad cayilan tahay midda saddexaad waxa weeyaan haddii aad leedahay xanuunada kor ku xusan oo ku keeni karayo ciladan sida gaaska sonkorta kolestaroolka dhiigkarka howlgabka thyroidka iyo kuwa kaleba fadlan waa in aad iska daawaysaa midda afraadna waxa weeyaan in aad iska ilaalini karayso xiridda aad xiranayso kabo kugu dhegan ama taaka leh si ay seedaha lugaha dhaawac kaaga gaarsiin midda shanaadna waxa weeyaan markaad socor dheer gasho ama aad soo daashid iskaalshada iyo kabaha iska siib si ay cagahaagu u helaan nasiino iyo habo dhididkana ugu qalalo tan waxay ka mid tahay bararka cagaha
ama waxay ka hortagi doontaa bararka cagaha. Fadlan waa in aad ku dadaali karaysaa nadaafadda lugahaaga. Midda lixaadna waxa weeyaan waa in aadan galinin lugahaagu biyo baraf leh ama baraf ku jiraan, waayo way kaaga sii daraysaa cagahurka. Midda toddobaad waxa weeyaan talada ugu dambeyso waana mid u gaar ah haweenka marsado cilaanka daawada lagu daro ee loo yaqaano dalwandi. Daawadan waxay dhaawici karaysaa neerfaha mana u roona caafimaadka ee fadlan isticmaalkeedu iska jooji. Haddii aad jeceshahay in aad iga weydiiso cashirkan su'aalo, waa ayaad iga weydiini karaysaa. Iskuna day fadlan in aad ku soo biirto channel YouTube-keegu una shaygarey asxaabtaadu si ay ugu faa'iidaystaan saad adigu waqti xaadirkan ugu faa'iidaysatay.